بسم الله الرحمن الرحيم marka koobaad waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta xisbiga mar labaad waxaan salaamayaa asxaabtayda taageerayaashayda quruxda badan leh ee maanta igu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa waxaan idin leeyahay dhamaantiin waad mahadsantihiin mar labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo inkastoo aanan qurba joog ahayn laakiin qofku markuu wadanka dibadda uga yara baxo wuxuu diiradda saaraa oo uu mar walba diiradda ku haya dalkiisa heer gobol ilaa heer degmo waxa ka socda waxa dhacaya siday wax u socdaan sida awgeed waxaan arkayaa ama aan qirayaa xukuumaddii Soomaaliland iyo shacabkeedii inay laba wado kala qaadeen xukuumaddu waliba ay isdaydeeyaan xukuumaddu waxay qaaday wado shacabka reer Soomaalilandna waxay qaadeen wado dhibaatadu waxay tahay markaa sababta laba wado loo kala qaaday sababteeda waxa iska leh golaha wasiirada ee la rabay inay noqdaan connection-kii bulshada ay matalayaan heer gobol ilaa heer degmo ay ka soo jeedaan iyo bulshooyinka reer Soomaaliland halkay u noqon lahaayeen iyo xukuumadda connection ayay noqdeen kuwa aan xiriirin karin bulshada reer Soomaaliland iyo xukuumaddii ay matalayeen sida awgeed xukuumaddu gidaare cidla iyo wasaarada cidla ah ayay inay macni nuuradayso rinjiyayso iyo qandaraaska yaa la siirayaa bay goli wasiiradu ku mashquulsan yihiin shacabkii reer Soomaalilandna wada kale qaadeen oo meel ay u socotaan ay garanayn sida awgeed xisbiga wadadii shacabku marayay buu hortiisa istaagay wuxuu shacabka reer Soomaaliland u sheegay in ay laba mataana xisbiga wadani iyo shacabku noqon doonaan wuxuu iftiimiyay rajadii shacabka reer Soomaaliland luntay waxay ku soo dhaweeyeen shacabka reer Soomaaliland gacmo furan waxay ku raadeen xukuumadeeda waan daydeynay waddaanu haysaniyo wadadaanu maraynana halkay nagu ridayso maanaan garanayn sida awgeed xisbiga wadani waxaad soo nooleysay rajadayadii sida awgeed waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gacmo furantaas waa xukuumadda iyo golaheeda wasiirada iyo shacabka reer Soomaaliland iyo xukuumadda iswaayay waxaan intaa ku darayaa maadaama xogeeyay dhalinyarada ahay arrin dhacday baan idinka sheekaynayaa waxaan la soo hadlay asxaabteeda waxaan ku saaxiibayaal waxaan rabaa inaan imaado beritoole xagaa joogtaan waxay yiraahdeen midkaayaba qolbu ku xidhay oo qabiil baanu ka sheekaynaa rooday waxba ka dambeeyay horta qolomaad ahayd runtii waa naxay waxaan ku uri fayraska ayaa qaybiyay waxay yiraahdeen xukuumadda Axmed Siilaayo ayaa tugriga ka soo xambaartay waxay yiraahdeen shirkii tugriga ka dhacay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa xukuumadeena la soo faray in hadallada xanafta leh ee shacabka reer Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliya kala fogeynaya inay xukuumaddu iska dayso sida awgeed hadalladii xanafta leh ilaa waanu damqanaynaa ma dayn karnaa marka xamar la soo qaadee xukuumaddu Hargeysay soo dhigtay hadalladii xanafta lahaa dabadeedna fayraskaasay message ku qaybinaysaa waxaan ku dhageysta hadaba saaxiibayaal ka warrama fayraska hadii aynu joojino sida fayrasku moobilada iyo kombiyuutarada markuu galo u baabiyo ayuu fayraska qabiilku hadii ina galo inoo baabiinaya sida u aragtaan inaynu fayraska iska qabano oo joojino waxay yiraahdeen waxba kama qabno waxaanu isla kaashanay xisbiga mucaaridka ah ee wadani iyo dhalinyarada reer Soomaaliland inay fayraska qabiilka dawadiisa soo saaraan taa waxaan ku darayaa reer awdal fariin baan u diray waxaan leeyahay waxa Soomaaliland ka dhacaya ayuunba idinkana idinku dhacaya wax gaar idin ama aha haday tahay cid matalaysa magac beeleed iyo haday tahay cid matalaysa bulshada reer Soomaaliland in la xiro dhibaatada saami qaybsilaanta dhibaatada xariga dhibaatada tacadiga bulshada intaba Soomaaliland kala simantiin ma aha wax idin gaara waxaan idinku dardaarayaa inaa saa u samri jirteen u samro reer Soomaaliland samraan sida awgeed idinkuna samirka waa ku wacnaydeen ilmaadeerayaalow inoo samra xabadda fayraska aan sheegay qaybinayana waxa inoo ballanay inaynu qabanno intaas faraya aad baan idin salaamaya dhamaantiinba salaan qaaliya insha Allah intaan kaga baxayo waan idin mahad celinayaa